dadka sidee cilmi nafsiga suuqa u bartaaba la isoo weydiiyey ama trading psychology-ga maxaa ka mid a waxyaabaha adeegsato horta cilmi nafsiga suuqa waa taqaanaa waa trading psychology mar walba mindsetka iyo trading psychology-ga uu dhisan yahay waa mar walba suuqa ku guuleysanayso cagsigeeda mar walba psychology ahaan aadan dhisnayna istiraatiijiyadaada kuu saxnaato technical analysis fundamental wax walba baro risk management lahaa no ma shaqeynayso yani mindset ahaan waa inaad dhisan tahay aniga waxyaabaha adeegsada waxaa ka mid oo kale horta casharada igu dambeeyaan qofka aan siiyaa casharada igu dambeeya qofka rabiisi ku tababaro istiraatiijiyada intriyada nidaamkeena ku tababaro casharada igu dambeeyaan ka dhiga so bedelkii aan adeegsan lahay waxa la yiraahdo inaan inta pdf soo diyaariyo ama slide soo diyaariyo aan qofka aan u sharxo wasaan iyo saan u akhriyo waxaan ka doorbidaa inaan ugu yaraan 20 daqiiqo hadlo waxaan ka sheekeeyaa khibradeyda qofka uga sheekeeyaa waxaan ka soo qaadaa inuu yahay wiil yar oo hor fadhiya aniga nin oday aan ahay uuna doonayo inuu khibradiisa iga wareysto maxaan sameynaa marka waxaan uga sheekeeyaa qofka marxaladii aniga aan soo maray tusaale akoonka igu horreeya life oo aan inta 2 challenge maray sideen ku gaaray inta aan akoonka life ka helin ka hor ma jirin akooma challenge ee ka horreeyay aan gubay maxay ahaayeen waxa kuwaas aan sameeyay oo aan kan aan ku saxay oo aan sameeyay akoon life $10 intaan ku shubay $200 $300 aan gaarsiiyey sidee ku gaarsiiyey cagsigeeda ah $10 intaan ku shubto meeqa jeer baa 10kii zero gelisay marxaladaha yani aan soo maray aniga wixii aan soo maray khibradeyda maanta halka aan joogo ilaa aan soo bilaabo qofka markaas wuxuu helaa cilmi laga yaabo 3 sano ku qaada lahaa buu helaa experience buu helaa halkii uu la dhihi lahay absida iska ilaali of trading han samaynin waxaas dib ka dhig laakiin qofka marka hore waxa u sheegtaa khibradaada uga sheekay qof wixii ku shaqeeyay wixii aan ku shaqeeyay wixii qaladaada aad bartay bar si uu soo ugu dhicin soo aniga qaladaadka aan ku dhacay inta aanan saxin ka hor adeen kaaga sheekayna marka meeshii aniga aan saxay baad ka bilaabaysaa